hambalyadii aroos ee tacsida isku beddeshay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun madal aroos oo aad loo qurxiyey balse saacad gudahood lagu soo wargeliyay caruusadii loo ballansanaa meherkeeda in ay geeriyootay waa dhacdo aad u xanuun badan oo murugo badan fadlan walaal waxaan kaa codsanaynaa si naxariis leh inaad sii sheergarayso muuqaalkan una duceyso walaashan Soomaaliyeed in Ilaahay u naxariisto saaxiibadaada kalena sii gaarsiiyo muuqaalkan si uu dad badan u gaaro Faaduma Cismaan Aadan Dheeg Allah u naxariistay waxay saaka kulansatay meher iyo geeri hal saac gudahood kadib markii loo ballansanaa meherkeeda oo goobtu ka dhici lahaa la tagay waxa ku soo booda xanuun aad u daran kaas oo loo dhigay isbitaal ku yaal magaalada Hargeysa kadibna daqiiqada gudahood ay nafta ka baxday waa dhacdo aad u xanuun badan oo saaki ka dhacday magaalada caasimadda u ah Somaliland ee Hargeysa Faaduma Cismaan Aadan oo meherkeeda loo ballansanaa saaki inuu ka qabsamo caasimadda oo u dabaaldegi lahayd maalinteedii koobaad arooskeeda oo muddo badan ay sugaysay ayaa xanuun ka soo buuday kadib loo gaarsiiyay mid ka mid ah isbitaalada Hargeysa halkaas oo ay ku geeriyootay waxay dhacdadaani noqotay mid hadal hayn badan ku abuurtay geyiga Soomaalida maantay maadaama madal aroos ay isku beddeshay goob ay tacsi taalo tani waa cibaaro waana dhacdo dunida ku yar oo aan badi loo arag aad ayaa maanta looga hadal hayaa arrintaani magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland oo ay dhacdadaani ka dhacday ma jirin Faaduma wax ay sababsatay u geeriyootay balse xanuun ku soo booday ayaa sabab u noqday dhimashadeeda tani waa arrin aad uga naxisay goobtii arooskeeda ka dhici lahaa oo ay ku sugnaayeen dhammaanba ka soo qaybgalayaashii loogu talagalay inay ka qayb galaan meherkaasi waa dhacdo xanuun badan waxaana sidaan oo kale bila ka hor ay dhacdo noocan oo kale ay ka dhacday magaalada Jigjiga kadib markii caruuskii meherkiisii la soo gabangabeeyay gaari la rogmaday uu ku geeriyooday nafta bini'aadamka inta ayuu jirtaa alla waxaan ka baryaynaa in mowdka uu nala kulmo inagoo oo qayr ku jirno maanta iyadoo u ahayd maalin farxadeed ayay waxay noqotay maalintii waqtigeeda ku ekeed ee dhimashadeeda waa dhacdo xanuun badan inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan rabbi uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo familkeedii iyo sidoo kale saygeedii maanta ay wada aqal gali lahaayeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo waxaana kaa codsanaynaa walaal muuqaalkan hadduu ku soo gaaray inaad sii sheergarayso una duceyso walaasheenna Soomaaliyeed